dhulbahanta abaal ma leh abaal dhulbahanta ma leh ilaahayna abaal uma hayaan aadamigana abaal uma hayaan horta marka hore reer Puntland xaal baan ka siinaya reer Puntland anigu ni Somaliland baane rajis wiilyaha uga hiilinaya baan kamid ahaa waxaan rajil habul baantow bal oroma baan u galay iska jooga haddii taa calaamadeeda aan soo sheego hiil bay iga ahayd dadkii horta u hiiliyay dhulbaanta hiil male Puntland iyo danina abaal male abaal may u galin cidii khilaafka uga hiilisay cidii gacanta uga hiilisay midna abaal uma hayaan ilaahayna abaal uma hayaan كاين كاين ما أبغى ما هين دونان أفر عشان ببعضها لا يراعدا أفر تودا عشان كاين ما يستان كنا دوفار وما كان يقدونا واحد لا هاي نوال بروح مشينا يا صوماليات هل كان لقى جوري الدم من أبغى الله أبو هين ماي هل كان لقى جوري أنت أبغى سوي هيسير هاي حبة كداية ورنا كاسنا هو دلنا abaal halkay ka taagan yihiin baan arkaya waxana ii muuqata dab laba dawladood dhexdooda lagu shiday dabkaasi wuxuu ku dambayn doono xasanow hadduu yimaado wuu iska tegi xamsana wuu iska tegi war haddii meeshiina laasacaaloodiina ku adkaataana dee ayaamaydu sii iftiimi haddii danu isku doonataan iyo maxaan kuwa Somalilandna fiifakiina la arki maayo habar baa waxa la yidhi odaygeedii maalin islaayeen odaygii baa simbirixooday u dhacay mar walba waxay la jirta marka afka istaaf dhaafaanba waray wallahi billahi tallahi waxa soo dhex xambaaradaadii maalintan ku legday bay sheegaysaa horta dhulbaanta waxa ka soo haray maalin baa loo leeyahay war maalin baa la idin kufaye cid walba idin kufimaysa libintiina la seexda oo la aamusa oo nabada qaata intaaba waa diiday soo maaha waxaad arki doontaan haddii taa diideen waa halkii muuse laga raacay shaydaanka la yidhaa aniga markuu qofka fuulo ayuunbaa loo yaabaa muuse waxa laga raacay si soo wada raaca aabihiin baanu dili jirnay wallaahi ya bilaahi tallahi labadeeda safad mid baa saawir noqon doonta tii laga raacay muuse tii baa laydinka raacayaa maanta isla weynaanta meel ma gaadho waxa weeyaan haddaad wax heshay dee nabad baa la qaataa waxa si ay kugu badbaadaan haddii aad wax farafarayso libintaadii ninka shaydaankaasi fuulaa u balanbalaawun waa laga duulguuraayo xamaamadunbu ka carraa sidii muuse waaradeena wixiina bismilaysta danina ha ku duulina cid kalena ha ku duulina inta meeshiina iska haysataan nabad qaata maxaabiistan haddii cunaysaan karsada walaa waxa meesha in anaga nagu waa cunaba nagu ictiraafayo idinku ictiraafi mayno أي أما هنا ذيك هذا قامنا وحنا ذلنا هاي إلى هاي حنبلنا نشوف كوك هذا إن حديد دجالتان إلى وحنا يسوي ذن هذا ما حد يحمل الكلمة منك هذا بعد كسر قرية يسوي يحمل ما تشلون وحنا بيشلون ودار الدقيق أيام دب كش ذا دب كانوا هم كنا حشنا يا دار نحن يسوي كسرنا يو دجال استين الناس كانوا في الرياض قاطي أنا قلت شوف ذولا الله كل شيء كل يوم يعمل ملايين الحبس جايبين قلي أنا الكل ذوق خدام بيا ماركنا تاريخ من مسجد عن تاجتي إسلام من مسجد عن تاجتي صومالي من مسجد عن تاجتي والواحد بين سال لقرته الله يطول يرى نجا بدو ولا عينه ولا كم قنتاي صومالي لا اعتراف كذا صار تاج ميسي هدي صومالي لا راح لنا صومالي لا نبغى وحليا هدي اعترافنا صومالي لا نبغى وحليا من البحث كان صومالي لا راعية أما والو أما ما يرقب واحد كلها هاي طول بعد ويلي طول كان واديدي في كل جايين واديدي من واحد كله خارج عنك كده بيسه إلى هذا كي جاي بدأ سوي عندهم واحد لا هاي إلى هنا حسوسة أنا مثل حسوسة أي شيء من هتلاقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرتمية إلى هاي خير ركسي مصطفى هو أرنت صال warku inuu isuma keenay ganaaniga laakiin hadda waxa la weydiisay arinta sool waxaan u arkaa oo makaaniga ay muuqda arinta miladalkeeda iyo hawlaheeda horta dad kale iyaga ku xiiqsan waxa saaniga ay muuqata
aad iyo aad wax lagu xumahay oo aad iyo aad igu soo dhaca dhulbahante